kusoo dhawaada daawadayaal wararka codka shacabka TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah qaabka dawladda federaalku ay u wajahayso kiiska badda oo dhaliil xoog loo jeediyay dhinaca kale Soomaaliya iyo Kenya oo ku heshiiyeen laba qodob oo muhiim ah al-shabaab oo sheegtay in sarkaal sare ay ku dileen magaalada Muqdisho warbixin ayaan idinkaga haynaa dawladda Soomaaliya oo hubiye saarad military geysay Galmudug agaasimaha maamulka IMF oo taageertay dadaalada Soomaaliya ee qorshaha deyn cafinta meydadka Soomaali toorey lagu diray oo laga helay dalka Jarmalka khilaaf ka dhex aloosan Igaad iyo Abiy Ahmed oo Djibouti u jooga xal raadinta khilaafkaasi wararka dibadda aan idin haynana waxa kamid ah Turkiga iyo Ruushka oo u tashanaya Kurdiyiinta Suuriya haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan aan ku bilownay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar Axmed ayaa dhaliilay qaabka ay dawladda Soomaaliya u wajahayso kiiska badda ee horyaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ Yuusuf Garaad ayaa sheegay inay tahay markii ugu horeysay ee uu siyaasi qayb ka noqdo ergada Soomaaliya ee matalaysa halka markii hore ay guddi farsamo iyo qareeno ay matali jireen Yuusuf Garaad ayaa bartiisa baraha bulshada waxa uu ku soo qoray dacwadda badda markii la diyaarinayay qarsoodi ay ahayd intii ka dambeysay dawladda ayaa bulshada war rasmi ah oo haddana sugan ka siin jirtay ergada taageerta ama tagaysa ICJ goorta iyo waliba sababta loo tagayo inta maxkamadda la joogo ayaa mar kale shacabka war sugan laga siin jiray sida ay wax u socdaan hadda ugu yaraan 2 jeer fal dhacay dabadii uu suuqu u waramay shacabka kadibna ay dawladdu u xaqiijisay waana markii ugu horeysay ee siyaasi uu ka mid noqdo ergada Soomaaliya ma xuma in wax cusub la isku dayo laakiin haddii sidii hore ay wanaag badiso ma ahan in lagu adkaysto sida cusub ayuu yiri war uu soo galiyay Yuusuf Garaad bartiisa baraha bulshada dhinaca kale dawladda Soomaaliya iyo Kenya oo uu haatan ka dhaxeeyo muran xoogan ayaa ku heshiiyay qodobo muhiim ah labada dhinac danna oo isla markaasi shacabka reer Kenya iyo kuwa Soomaalida wasiirka maaliyadda Soomaaliya iyo Kenya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo Ukur Yatani oo kulan ku yeeshay magaalada Washington ayaa isla gartay in muranka badda uusan saameyn hawlaha gargaarka iyo ganacsiga ee u dhaxeeya labada dal sidoo kale waxa ay ku ballameen labada wasiir in ay ka wada shaqeeyaan ama ay ka wada shaqeyn doonaan in mar walba uu xiriirkoodu hagaagsanaado si uusan mar kale u dhicin khilaaf diblomaasiyadeed hor leh shirkan jaraa'id oo ay si wada jir u qabteen kadib shirka miiska wareegsan ee bangiga adduunka iyo hay'adda IMF ay wasiirada maaliyadda Soomaaliya iyo Kenya shaaciyeen inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo daris wanaaga iyo wada noolaashiyaha ay hore u wadaagi jireen tan iyo markii uu soo shacbaxay muranka badda labada dal oo salka ku haya dhulbadeed dhan 150,000 oo kiiloomitir oo laba jibaaran ayaa waxa sii xumaanayay xiriirka labada dhinac kaas oo ka sii darayay markii ay dawladda Kenya qaadatay tallaabooyin karan ah Soomaaliya dacwadda badda oo haatan ka furan maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa dib loo dhageysan doonaa 8 ilaa 12 Juun ee sanadka 2020 ee soo aadan iyadoo muddo 2 jeer ah dib loo dhigay kadib codsi ka yimid dawladda Kenya al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda dilka saacadihii la soo dhaafay ka dhacay degmada Hodan ee gobolka Banaadir war ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in Saybiyaano ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Bangarafta Soomaaliya al-shabaab ayaa magaca sarkaalkaasi ku sheegay Muuse Abuukar Maxamed Nuurow waxaana ay tilmaameen inuu wada shaqeyn la lahaa ciidamada Mareykanka sidoo kale waxa ay sheegtay al-shabaab in sarkaalkaasi uu Africom muqaabilsanaa sahminta goobaha weerarada ee habeen-dheelmadka ah lagu qaadayo ee gobolka Shabeellada Hoose mujaahidiinta ayaa degmada Hodan ku khaarijiyay Muuse Abuukar Axmed Nuurow oo ka tirsanaa maleeshiyaadka shahaada la dirirka murtadiinta Bangarafta wuxuu ahaa murtad cadow ku hogaamin jiray deegaamo ka tirsan Shabeellada Hoose ayaa lagu yiri war kooban oo al-shabaab ay soo galiyeen barahooda ay ku faafiyaan wararkooda dhanka kale ma jiro wali wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee dawladda Soomaaliya oo ku aadan sarkaalkaasi ay sheegeen in ay dileen dagaalamayaasha al-shabaab
dilkan ayaa qayb ka noqonaya dilal qorshaysan oo maalmihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in hub iyo saanad military oo hor leh ay ka daysay degmada Hobyo ee gobolka Mudug. wararka ayaa sheegaya in hubkaasi oo aad u fara badan ay dowladdu dooma dheereeya ku geysay dekada magaaladaasi ee Hobyo. sidoo kale wararkan helayno ayaa sheegaya in hubkaasi iyo saanada military loogu talagalay ciidamada xooga qaybta 12aad ee ka howlgala gudaha Galmudug. lama oga sababta ay dowladda federaalku ay hubkan u geysay halkaasi, balse wararka ayaa sheegaya in loogu talagalay howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ka bilaaban doona gobolada dalka oo ay ka mid yihiin Galmudug iyo Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya. arrimahan waxay ku soo aadayaan iyadoo dhaqdhaqaaq siyaasadeed uu ka socdo magaalada Dhuusamareeb oo lagu qaban doono doorashada maamulka Galmudug. dowladda Soomaaliya oo dhawaan magacowday guddiga farsamada maamulkaasi ayaa wada qorshihii ugu dambeeyay ee dhismaha Galmudug iyo u diyaar garowga doorashada maamulkaasi. agaasimaha maamulka IMF Kristalina Georgieva oo kulan la yeelatay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa shaacisay in si buuxda ay u taageersan tahay dadaalada loogu jiro in Soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay horaanta 2020. waxaan kulan miradhal ah xarunta dhexe ee IMF kula yeeshay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaana ugu hambaliyay dhaqangelinta xoogan ee joogtada ah ee uu ku sameeyay qorshaha dib u habeynta dhaqaalaha iyadoo ay jireen caqabado badan. waxaan isweydaarsanay muhiimadda ay leedahay in deynta looga cafiyo sida ugu dhaqsaha badan iyadoo loo raacinayo hindisyaha wadamada saboolka ah ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ay soo saartay IMF. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay intii uu socday kulanka uu ra'iisul wasaaruhu ku celiyay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay dib u habeynta iyadoo la raacayo barnaamijka lagu magac daray SMP ee socda. waxa uuna sidoo kale adkeeyay dhamaystirka qorshaha qaran ee 9aad ee dhawaan golaha wasiiradu u ansixiyeen. dhamaystirka qorshaha horumarinta qaran iyo dib u habeyntu waxa ay qayb ka yihiin shuruudaha hindisaha wadamada saboolka ah ee deymaha fara badan lagu leeyahay ee HIPC. joogtaynta shaqo wanaaga xoogan oo ay la jirto taageerada saaxiibada caalamiga ah waxa ay wadada u xidhaysaa Soomaaliya in deynta laga nadiifiyo mustaqbalka dhow. waxaan u xaqiijiyay ra'iisul wasaaraha in IMF ay si buuxda u taageersan tahay dadaalada Soomaaliya ee deyn cafinta oo ay ka mid tahay in lala shaqeeyo xubinimada sanduuqa ee lagu sugayo kheyraadka maaliyadeed ee muhiimka u ah deyn cafinta IMF iyo dawladda kharashaadka ku baxaya deyn cafinta ayaa sidoo kale war-saxaafadeedkaasi lagu soo gabagabeeyay. taageerada IMF ayaa xoojinaysa galaangalka dowladda iyo dadaalada lagu doonayo in Febraayo 2020 dowladda Soomaaliya laga nadiifiyo deymaha lagu leeyahay si ay uga furmaan albaabada hay'adaha dhaqaalaha adduunka. meydka wiil 19 sano jir Soomaali ah ayaa xalay laga helay wado ku taala magaalada Plauen ee gobolka Sachsen ee wadanka Jarmalka. booliska ayaa sheegay in wiilkan uu u dhintay dhaawacyo mindi ah ama torrey ah oo ka soo gaaray qaybta sare ee jirkiisa. wiil kale oo 19 sano jir ah ayaa lagu tuhunsan yahay inuu dilkaasi geystay kaasoo booliska magaaladaasi ay gacanta ku hayaan hadda waxaana ka socda baaritaan lagu ogaanayo in uu dilkaasi ka dambeeyay inankaasi 19 sano jirka ah. lama sheegin magacyadooda balse mid ka mid ah Soomaalida magaaladaasi ku nool ayaa sheegay inay labada wiil ay saaxiibo ahaayeen ayna la yaaban yihiin sababta keentay in midkood uu dilo kan kale. Soomaalida u yaacday qurbaha ayaa dalkooda uga cararay dhibaatooyin isugu jira kuwa nololeed iyo amni darro, balse markii ay tageen Yurub iyo Mareykanka waxay qaarkood bilaabeen inay dhexdooda isdiraan. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo hadda ku sugan Djibouti ayaa halkaasi ka wada xalinta khilaaf soo kala dhex galay qaar ka mid ah wadamada ku buhoobay urur goboleedka IGAD kaas oo ka dhashay cidda qabanaysa madaxtinimada urur goboleedka IGAD kadib shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya oo fadhiga u ah ururkaasi. madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa Abiy Ahmed kula kulmay magaalada Djibouti ee xarunta dalkaasi isagoo kala hadlay khilaafka ka soo dhex cusboonaaday ururka iyo arrimo kale. kulankii ugu dambeeyay ee madaxda IGAD ay ku yeesheen Addis Ababa ayaa waxa lagu go'aamiyay in Itoobiya iyo Kenya ay isku weydaarsadaan
gudoomiyaha IGAD iyo xogayaha guud ee IGAD. Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa hayay xilka gudoomiyenimo ee IGAD oo waqtigiisii dhamaaday iyadoo uu la wareegi doono madaxweynaha Kenya ee Uhuru Kenyatta. sidoo kale Kenya ayaa iyana wareejin doonta xilka xogayaha guud ee IGAD ee uu hayo Maxbuub Macalin oo ah Soomaali Kenyan, waxaana xilka xogayaha la wareegi doona nin u dhashay dalka Ethiopia. Dowladda Djibouti ayaa ka soo horjeeda qayb ahaan go'aankaasi hoggaanka IGAD ay isku wareejinayaan Ethiopia iyo Kenya, halka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hore u doonaysay xubinta xilka xogayaha guud ee IGAD, waxaana hore u jiray qorshe ahaa xilkaasi loo magacaabo Cabdisalaan Hadliye Cumar oo soo noqday wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya. Ugu dambeyntiina wakaaladda wararka Reuters ayaa baahisay in Turkiga iyo Ruushku ay ka shirayaan in Kurdiyiinta Syria laga saaro magaalooyinka ku yaala waqooyiga Suuriya ee Manjib iyo Kobani marka ay madaxdu ku kulmaan magaalada Sochi toddobaadka dambe. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa warbaahinta ku xaqiijiyay in Putin iyo Erdogan ay ka wada hadli doonaan in magaalooyinka muhiimka ah laga bixiyo gacanta Kurdiyiinta. Xukuumadda Ankara ayaa Khamiistii waxa ay heshiis la gaartay Mareykanka, waxayna ogolaatay in gulufka waqooyiga Syria hakiso, taas beddelkeedana ay Kurdiyiinta dib u gurtaan. Talaadada toddobaadkan ayuu madaxweynaha Turkiga u safri doonaa magaalada ku taala xeebta Badda Madow. Guud ahaan wararkeed kala socoteen Codka Shacabka TV waa naga intaas.